adiga loo kula kulmay xaafadda Wembley ayaan wax ka weydiiyay arrimaha Somaliland iyo Soomaaliya haye xasan reegal ku soo dhow horta ilaahay waxaan u baryaynaa dadka koonfurta Soomaaliya waxaan leenahay ilaahay qulubtooda isku soo jeediyo xabadana ilaahay ka joojiyo waxaanu leenahay oo kale waxaanu jecelahay jamaal dhulka koonfureed oo hagaaga oo mufadooda wada cuna oo heshiiya oo xabadda iska daaya اعترافنا Republic of Somaliland Somaliland way socotay waxay noqotay mid jirta oo dhaqaale leh oo xisbi leh xisbiyada maanta Somaliland ka jirana waxaan leenahay gacmaha isqabsada unity ayaa wax ku helaysaa iska daaya caayda iyo aflagaadada iyo hebel baa wax qaatay iyo hebel baa xunay taasi ma jecla waxaan qaaday jecliyahay jamaal dhulkooyo jecliyahay Somaliland oo united jecliyahay jamaal dhulkooyo jecliyahay Somaliland oo la اعترافo jecliyahay jamaal dhulkooyo jecliyahay konfuro heshiisa jecliyahay jamaal dhulkooyo hawiyo daaroodo xamarkooda noolaada jecliyahay jamaal dhulkooyo kiilka shanaado sheekh saacad daaroodkooda noolaadaan iyo hawiye kaana waan jeclaan lahaa waxaan kaloo dhammaan hambalyo u dirayaa ninka haysta kiilka shanaad inuu ka shaqeeyo nabadda iyo uu joojiyo xabadda uu ku dhufanayo iyo booliiskiisu dadka masaakiinta ee dega ama reer sheekh saacad noqdaan ama hawiyaha noqdaan ama reer xasan noqdaan madaxweyne xaq noqo oo dadka u qaybi xukunka oo dhaqaalaha wada gaarsiin oo ceelasha u qod oo iskuulada u qod kaas waxa professor Abaaja waa farxan badda soo idin kala socodsiinaya halka